بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan idin lahaantiin badawadayaal saaxiibayaal halkani waa bartan YouTube-ka ku leenahay qaranka TV kanaal taariikhdu waa 14 bishii 8 sanada 2021 maalinimo sabti ah ku soo dhawaada wararkeena daawadayaal waxaan idin ka cududaarayaa in xoogaa hargaba uu jiro isla markaana codkaygu uu noqon doono mid xoogaa xabeeb ay ku jirto qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah labadii laqdaba ku heshiisa liilaahida ayay ku culuubaan mucaaradka gaar ahaan midowga musharaxiinta iyo hogaamiyaasha Puntland iyo Jubaland oo ay ka dhex qaraxday dagaaltii ugu adkaa isla markaana shirar gooni ah ayaa mucaaradkii uga socda magaalada Muqdisho madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo goos dambeedka ka qosliyay daawadayaal iyo raggii heshiiska u ahaa 4 sano uu ka shaqeey waayay oo iyaga dhexdooda ay ka bilaabatay kadib markii nin walba dantiisa gaarka ah uu jeestay ama uu ruqaansaday dhinaca kale hogaamiyaha Galmudug oo weerar dadban iyo jawaab siiyay Cabdiraxmaan Shukuur Warsame hogaamiyaha xisbigooda jir iyo waliba Daahir Geelle oo laba musharax oo si dadban iyaguna u weeraray habkay ku bilaabatay doorashada aqalka sare iyadoo doorashadii aqalka hoosena ee la filayo in dhawaan ay bilaabato waa tahay sidoo kale wararkan waxaad ku daawan doontaan ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha dalkeena Soomaaliya oo lagala hadlay gumaad ay u geysteen shacab Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Shabeellada Hoose 7 qofood ayay xasuuqeen daawadayaal gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa kulan la qaatay ciidamada AMISOM saraakiisha ugu sarsalaysa dhinaca kale markab laga leeyahay dalka Turkiga wata calanka dalkaasi ayaa burcadbada Soomaaliyeed waxay isku dayeen inay qafaashaan ama ay qabsadaan balse Ilaahay ayaa ka badbaadiyay warbixin ayaynu idinka haynaa intaas ugu gudagelin qodobadaas oo faahfaahsan waxaad ka codsanaa barteena YouTube-kana subscribe tiraadaan gambaleelka furataan like saartaan muuqaalkan sii share gareysaan oo la wadaagtaan saaxiibadiina si ay noogu soo biiraan sidaan hore idinku sheegay codkayga hore oo kale ma ahan waan yara hargabsanahay waa tahay aynu ku bilowno daawadayaal xubnaha golaha midowga musharaxiinta ee mucaaradka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu kulan uga furmay magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka lagu magacaabo Jazeera ee magaalada Muqdisho kaas oo ay uga hadlayaan xaaladaha soo kordhay gaar ahaan arrimaha doorashooyinka bilowday ayay si weyn u suluugsan yihiin gaar ahaan doorashada aqalka sare wararka ayaa waxay sheegayaan daawadayaal in kulanka diiradda lagu saarayo habkii u dhacday doorashada aqalka sare iyagoo sidoo kale ka baqaya ama ka walaacsan in sidaas si lamid ah ay ku bilaabato doorashada aqalka hoose waxa ugu weyn oo ay ka cabsi qabaan ayaa waxay tahay inay meesha ka baxday rajo ay ka qabeen maamulada Puntland iyo Jubaland hogaamiyaashooda Wadani iyo Madoobe oo ay islahaayeen ugu yaraan xildhibaano ayay idin soo saari doonaan axsaabtiina taabacsan isla markaana xildhibaanadaas ayaad ku xisaabtami doontaan oo nin walba isagoo xoogaa xildhibaana uu haysto ayuu markaasi iska xaadiri doonaa doorashada hadhowna xulufaysi siyaasadeed ayaa idin dhex mari kara qorshe sidaas ayay aaminsanaayeen balse mucaaradku xisaabta kuma aysan darsan in Siciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha Puntland uu yahay nin u hanqal taagaya qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya xildhibaanada Puntland iyo Jubaland ka soo baxayana uu arko inay asaga laftigiisa ku yar yihiin intaasna inuu isku dabarito uu rabo oo cid kale uu waxba ka siin shakiga iyo tuunka iyo cabsida mucaaradka ayaa soo baxday ka gadaal markii ay arkeen 11 xubnood ee ka soo baxay Puntland iyo 8 xubnood ee ka soo baxay Jubaland hal qofna inuu soo soo bixin ayaga bal iska badaayay xubno iyo mucaarad iyo mas'uuliyiin iyaga ka tirsanaa ayaa waxay sameeyeen qaarkood waxa la weysiiyay kuraastii iyo positionada ay ku fadhiyeen oo dad kale ayaa lagu bedelay halka kuwa kale oo ka tirsanaa isla xisbiyadaas qof kamid ahaa lagu soo waramayo inuu Axmed Madoobe oo kale tusaale ahaan Firtaag wuxuu ka tirsanaa xisbiga UPD iyo Xasan Sheekh Maxamuud Weli oo madaxda ugu sarsareysay ayuu ka tirsanaa laakiin shardi ayaa lagu xiray inuusan u codeyn karin ama codkiisa uusan sii karin Xasan Sheekh Maxamuud oo codka la jihay doono oo ay jihay doonaan Dani iyo Madoobe طبعا waxa loo wada codka waa Dani Siciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha Puntland oo raba inuu noqdo musharax madaxweynaha Soomaaliya mucaaradka ayaa goor dambe soo hambabaray waxayna bilaabeen hadallo dhaliila oo xogaa khafiif ah iyagoo markii hore soo dhaweeyay wixii ay u jeedeen iyo baadiladii ka dhacay maamul goboleedyada wadadii uu jeexay Madoobe kama wadarin dhanka kale koonfur galbeed oo xildhibaano badan oo nabadii nolol ay ka soo baxeen iyo Galmudug oo laftigeedu xildhibaano mucaarad iyo kuwa nabadii nolol ka soo baxeen ayaa iyaguna tilaabooyin iska caynkaas oo kala qaaday in xubnaha la rabo la soo doorto oo hebel la soo yiraahdo kadibna malxiisayaal la soo raaciyo waxay iska noqotay wax caadi ah ama qof aan musharax ahayn la soo raaciyo deetana intaysa doorashada dhicin qofkii u dhawaa ama tanaasulay oo ay xildhibaanadu gacanta taagaan wax iska caadi ah ayay noqotay tan iyo markii uu soo bilaabay hogaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo fulinayay sida la aaminsan yahay amarka Siciid Cabdullaahi Dani ayaa arrintii ugu la yaab ka badneed sameeyay ka gadaal markii uu 11
xubnood oo aqalka sare kasoo galayay Puntland waa tiro badan marka la eego 11 xubnood. Somaliland iyo Puntland ayaa ugu badan oo hal mar gacan taag loogu codeeyay isla markaana xubnihii la socday kurtigood ay tanaasuleen. dabcan xubnaha ku soo baxay ayaa qaarkood waxay ahaayeen daawadayaal siyaasiyiin hore Puntland oo la soo shaqeeyay, wasiir oo ku kalsoon yahay iyo xubno kale oo ka tirsanaa maamulkiisa. arrimaha la yaabka ku noqotay mucaaradkii gaar ahaan midowga musharaxiinta oo xulufay bahwadaag siyaasadeed ay ahaayeen mas'uuliyiintan Deni iyo Madoobe oo 4 sano ay dagaal ku soo wada wadeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay ku hambabareen ama ay arkeen mas'uuliyiin ka soo galayay xildhibaannimada deegaanada Jubbaland iyo Puntland oo aan ka soo dhex muuqan meesha, kuwaas oo waliba la xarbinayay mucaaradka dabcan la safnaa oo dagaal ku waday madaxweynaha ayaa meesha laga waayay. gabi ahaanba xubnihii waa laga shaandheeyay. waxaana mucaaradka hadda u soo baxday in Deni iyo Madoobe iyo Farmaajo iyo waliba siyaasiyiinta markaasi kale siyaasadii kale ay isku dhaamin oo intuba lugooyo ay ka shaqeynayaan. waa markay ayaga dhankooda ka xisaabtamaan. waxay aaminsan yihiin in kuraastii uga tashanayeen maadaama meesha ay ka waayeen weerar inay ku qaadaan ay tahay, saasoo tahay weliba iska qabanayaan mucaaradka. midowga musharaxiinta ayaa shir 3 maalin soconaya waxa uga furmay magaalada Muqdisho Hotel Jazeera, waxaana shirkaasi ka gadaal maanta markii uu soo dhamaaday ama soo ilaaday qoraal soo dhigay bartiisa Facebooka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame siyaasiga hogaamiye xisbiga Wadajir. wuxuuna sheegay marka uu shirkani uu dhamaado 3 maalmood kadibna ay kulamo la qaataan beesha caalamka, madaxda maamul goboleedyada, ururada bulshada ay soo saari doonaan war-saxaafadeed. mucaaradka ayaa ka labalabeynaya inay si toos ah u weeraraan doorashadan aqalka sare ee la sameeyay, balse si dadban ay u weerareen isagoo hogaamiyaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame si dadban u weeraray hogaamiyaha Puntland ka gadaal markii uu sheegay mas'uuliyiin badan oo xildhibaano soo saartay sida markaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba Cabdullaahi Cali Gaas iyo mas'uuliyiin kale inay soo bixi waayeen oo xildhibaanadii ay soo saarteen dad kale ay u codeeyeen, taasoo loo arkay fariin uu u dirayo si gaar ah Deni. sababtan sidaa u leenahay waxay tahay qorqor oo kale wuxuu soo saaray dhowr hal xildhibaan oo mucaaradku ay markaasi ay heleen. Deni iyo Madoobe ayaa dhexda u xirtay sidii marka laga yimaado fowdada iyo dhibaatadii ku hayeen dowladda sidii qas magaalada Muqdisho ay markaasi ugala kulmi lahayd sanadihii tagay. waxaana la xasuustaa khudbadihii uu jeedinayay Said Cabdullaahi Deni hogaamiyaha Puntland, kuwaasoo mararka qaarkood isku dir caadi iyo nabiib iyo kicin beeleed si gaara beesha hawiya u muuqanayay in markaasi uu warbaahinaha siinayay si ugu yaraan midowga musharaxiinta oo inta badan mas'uuliyiintu ay kasoo jeedeen beeshaasi ay u kacaan oo iskula garabsadaan waa Deni iyo Madoobe iyo midowga musharaxiinta sidii loo ridi lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama meesha looga saari lahaa. jeero markii dambe lagu khasbay in uu doorashada gabi ahaanba uu ku wareejiyay mas'uuliyaddeeda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. saasoo tahay maanta wax ay ka hayaan oo markaasi ay ka faa'iideen malahan. dabcan ninka waxa weeyaan markaasi mas'uul diiday inuu 4 sano oo cusub uu qabto ama uu tugtug roonaado asagina aan wax chance helin oo mas'uul kale u hiiliyay ama fursad siiyay, waa iska dareemi kartaan wuu ka shalaayaya. markii hore kuma aysan xisaabtamin waxa halkan ka imaan kara. waa tahay daawadayaal dhinaca kalena hogaamiyaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa si kulul uga hadlay hadallo ka soo yaray Daahir Geelle iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Qoorqoor ayaa shaaca ka qaaday in doorashada dalka ay ka bilaabatay ay ku timid heshiis isla markaana ay tahay mid dadban. waa doorasho dadban oo sidii loogu talagalay ku socota sida uu hadalku dhigay. sidoo kale wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in la isku dulqaato isla markaana la taageero cidda ku soo baxda doorashada. dalku wuxuu ku heshiiyay doorasho dadban. marka doorashada dadban siday tahay iyo sidii ay ahayd bay ku socotaa. haddaadan adiga kursi ka soo helin ama mid aad rabtay uusan kursi ka helin in xumo uu dhacay micnaheeda ma ahan. horey aan u soconno ayuu yiri Qoorqoor. hogaamiyaha Galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas sii raaciyay adeer qof kasta oo Soomaali ah ee soo baxa haddaad tahay musharax cod ka bari cod warso waxaan leenahay u dulqaado dalka doorasho uu ku heshiiyey si xun wax u sheega ha noqonin. meeshii lagu tartami jiray xumaanta waa laga soo gudbay wanaag aad soo bandhigto ayaana lagugu dooranaya. hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli markaasi siyaasiyiin mucaarada ay dhaliileen habkay ku dhacday doorashada aqalka sare, taasoo ilaa hadda ka qabsatay Jubbaland, Koonfur Galbeed, Puntland iyo Galmudug oo weli xubno ay harsan yihiin. Koonfur Galbeed oo xubnaha harsan u maanta liiskooda shaaciyay hogaamiyaha Koonfur Galbeed, waxaana dhiman weli daawadayaal Hirshabelle iyo xildhibaanada gobolada waqooyi. waa tahay ugu dambeyntiina daawadayaal
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur cd ayaa si wada jira kulamo kala duwan ula qaatay saraakiisha qaybaha amisom iyo sidoo kale taliyaha ugu sarreeya howlgalka nabad ilaalinta ee amisom soomaaliya generaal Negeya Dimonde. Ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii baaritaan degdeg ah loogu sameyn lahaa dhacdadii argagax lahayd ee ciidamada amisom ku xasuuqeen allah u naxariistay dad shacab ah oo ku noolaa deegaanka goolweyn ee gobolka shabeellada hoose. duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa u sheegay madaxda amisom inaan la aqbali karin falkaasi guraacan ee lagu dilay 7 qof oo shacab ah, isla markaana loo baahan yahay in marxuumiintaas iyo eheladooda si degdeg ah u helaan cadaalad. dhawaan ayay ahayd markii la xasuuqay shacab Soomaaliyeed oo ay xasuuqeen ciidamada amisom kuwaas lagu soo waramayo inay miinooyin ku fariisiyeen kadibna ay la qarqarxday. waa tahay markab laga leeyahay dalka Turkiga ayaa lagu weeraray meel ka baxsan xeebta magaalada Muqdisho sida uu jimcihii sheegay ururka ganacsiga badaha UK ee loo soo gaabiyo UKMTO. weerarkan oo la rumaysan yahay inay fuliyeen kooxo burcadbadeed Soomaaliyeed ayaa abaara 7:45 AM jimcihii waxa uu ka dhacay meel 100 mayl ka baxsan xeebta Muqdisho. markabka ayaa lagu waramayaa inuu weerarkan ka baxsaday isla markaana shaqaalaha iyo markabkuwa ay hadda bad qabaan. kooxda qiimaysa halista badaha ee loo soo gaabiyo EOS Risk Group ee fadhigeedu yahay UK ayaa sheegtay in markabka oo sita calanka Turkey laga leeyahay gobolka Antalya ee dalkaasi. si kastaba Turkiga weli wax war ah kama aysan soo saarin dhacdadan. haddaba inkasta oo dhacdooyinka ee burcadbadeednimo ee xeebaha Soomaaliya aad u yaraadeen sanadihii tagay, haddana waxaa jira weeraro si naadir ah mararka qaar u dhaca. weerarkan ayaana noqonaya kii ugu horeeyay ee dhaca tan iyo bishii Abriil sanadkii 2019. sanadihii 2011 ayaa ciidanka badda midowga Yurub ee loo soo gaabiyay EU Naval Force waxay wariyeen in xeebaha Soomaaliya ay ka dhaceen 176 weerar iyadoo oo lagu qabsaday in ka badan 25 markab. hase yeeshee tiradaasi ayaa eber noqotay markii la gaaray 2016. qodobka ayaa warkeena ugu dambeeyay daawadayaal. waa Axmed Nuur Maxamuud in suufi oo tan iyo warkiisa xiga waxaanu idinka tagnaa sidaa iyo amaana Allah.